waxaanoo dhiba maxaa loo marayaa waxaanoo hadda dhibaataa waddanka loo gelinayaa waxaa loo gelinayaa qof raba inuu noqdo fowqa alqaanuun qof raba inuu yidhaahdo aniga fiid go-aan iima gaari karto sidaas daraaddeed haddaanay aniga fiid go-aan ii gaari karin waa inaan inta fiid dhinac maro si xoog ah aan anigu maaragtay meesha aan rabo ku tagoon qoryo ku fadhiisto marka haddii bodiyamka baarlamaanka soomaaliyeed ay noqon karto inta fiid la dhinac maro oo siid la dhinac maro oo khilaafaadka la dhinac maro in qoriba lagu tegi karo maxaan annagu bannaanka u joognaa maxaa idinku bannaanka u joogtaan maxaa qof kale bannaanka u joogaa waxaana reebay wixii lagu heshiiyo waay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee halkan ku jira ee aqoon-yahanka ah ee dadka soomaaliyeed iyagu sii wacyigelin lahaa ee xaqiiqada sii fahamsiin lahaa in la marin habaabiyo oo marin habaabin la dhex geliyo maaha waxaan u jeedaa kuraastaas guddi baa go-aan ka gaaray waxay yidhaahdeen waa in lagu celiyaa go-aan kale oo cid kale ka dhinac gaari kartaahi ma jirto cidda xaqa u leh inay gaarto oo ama ay ku celiso ama ay wax kala gaarto waa fiit waa guddi madax bannaan oo halkaa jooga oo shaqeeya oo mas-uuliyaddooda shaqadooda haysta jacaylka iyo nacaybka maxamed xuseen rooble qofna xildhibaan kuma noqonayo qofna kuma weynayo haddii arrintu ay compromise isku bedelayso oo dee sida lagu talinayo meelaha qaarkood meelaan compromise geli karin ay jirto compromise ma waxaa noqon kara qof xildhibaana oo guddiga fiit ay yidhaahdeen qofkan sida habraaca loo maro kursigiisa in la qabto sax ma aha waa in lagu celiyaa oo weliba qofkaasi weli uu dhammaan agsayskii oo dhan haysto yacni shala qoryuhu uu ku soo qaatuu haystaa maamulka uu ku soo qaatuu haystaa deegaankii uu haystaa haddeeba waa sax waaye boobaa ku jira waxbaa ku jira wax badanoo sax ahayna ku jira laakiin haddana ku noqo habraaci mar dariiqa saxda ahaa mar raba inaan maro waa inaan xoog ku galaa hadday sidaas tahay wax la ogolaan kara maaha waxaa intaas ku sii jira kaba soo qaad in la ogolaado oo la yidhaahdo qof intuu intaas dhinac maro oo baarlamaanka soomaaliyeed qoryo ku galo oo dadka soomaaliyeed ku cabsi geliya in haddii uuna asagoo xildhibaan noqon dalku uu dumaayo ha la iska daaya ee baarlamaanka ha tago sidaas dowladnimo ma ku dhismaysaa sidaas baarlamaanka soomaaliyeed ma ku dhaaranayaa sidaas xildhibaanada soomaaliyeed ma ku wada qancayaan sidaas dowlad goboleedyada soomaaliyeed ma wada aqbalayaan yacni xisaabta dhinaca aan ka istaagayna waxaan rabnaa ma dhinaca ay u yartahan ka istaagaynaa mise dhinaca ay u badan tahay ma dhinaca ay u dhowdahay mise dhinaca ay ka fog tahay waxaan marka ka wadaa waxyaabaha qaarkood ee hadda la rabo in la yidhaahdo laga dhigo war waxaan iyo waxaan aan iska dhaafno waddankaa dumaaye sidaas maaha waa halis waddanka laga hayo waana in laga hayaa waana in laga hor istaagaa sababtu maxay tahay waxa ay keenayso iyo fidnada ay wadataa ka weyn annagaa ogoo shaqada ku dhex jirno idinkana waa ogtihiinoo aqoon-yahan soomaaliyeed baa tihiin waxa ugu sahlani waa waxa lagu heshiiyey ee fiit iyo siid iyo khilaafaadku ay ka shaqaynayaan marka aan sidaas ka hadlayno guddiyadu siday ku timaadeenaa taqaaniin dadka soo qortay baa taqaanaan sida hanaanku uu ahaay baa taqaanaan waa wada ogtihiin marka waxaan rabaa taa inaanan horta intaa uga gudbin keliya waxaan diidanahay yaan dadka soomaaliyeed lagu marin habaabinin shaqrisana necab yahay iyo shaqsi la jecel yahay meeshaan ma taalo waxa yaalla waxa lagu heshiiye aan ku soconno waa miina la rabo baarlamaanka soomaaliyeed iyo dhaarinta iyo doorashada in lagu fashiliyo in dad qaanuunka inti lasoo dhinac marsiiyo lasoo dhex fariisiiyo oo markaa meesha laysku qabsado oo laysku xabadeeyo oo ay qori iyo xoog isku bedesho hadday qori iyo xoog tahay walaalayaal oo niman boqol baabuuro technica haystaa bannaanka jooga magaaladan iyo magaalooyinka kaleeto oo soomaaliya oo hadday bahasha xoog meesha lagu tegaayo raba inay soo tijaabiyaan marka waa 100% ay sax tahay fikradda ah ma aha inaan qori iyo xoog isku tijaabino marka waa ku dheeraaday raalli ahada waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo uga baxo arrintaas xoogaa waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan dadka soomaaliyeed lagu khaldin oo maaragtay aan looga dhigin arrin oo muxuu ahaa qaskeeda iyo hawsheedu ay tahay hawl siyaasadeed hawshaa waa hawl farsamo haddana waa lagu jiraa 100% waxa sax ah oo aan taageerayaa fikradda leh si nabada oo silmi ah oo degan inaan xooggeena isugu geyno doorashada inay teendhada ku dhammaato waay waxa ka sokeeya oo la rabo in naloo leexiyo waa inaan diidnaa laakiin taasu hal dhinac kama soco kartee wax kasta oo keeni kara inaan teendhadaas la tegin oo ay ka mid tahay inaanan procedureka iyo nidaamka iyo maamulka wax ku socdaan yacni fiiri waxaa la isku dayey in guddiyadii la dhinac maro waxaa la isku dayey in la yidhaahdo shahaadada yaan fiid laga doonan waad aragteen war-saxaafadeedya inta lasoo daraa waxaa la yidhi annagu warqadeenna toosaan intuu qaadnaan hebel iyo hebel u geynaynaa waxaasoo dhan maxay u dhacayaan marka waa mahadsantii waxaasoo dhan waxaan u jeedaa waxay tahay gabagabada meel fiican oo dhammaada